Jimco wanaagsan. Shalay ilaa maanta waxaa lagu soo taageerinayay dhacdo wiil xanuunsanaya oo baraha bulshada qabsaday, laakiin bulshadu isku khilaaftay waxa haya. Qaar dhahay wuu sixran yahay, qaar dhahay waa baraanka iyo views raadis, iyo kuwo dhahay wuu cabsan yahay, iyo qaar madadaalaba ka dhigtay. Su'aalaha ugu badan ee la isoo weydiiyey waxay kala ahaayeen: xanuunkan ma jiraa? Magaciisa noo sheeg, maxaa keeno, maxaase lagu gartaa, sida loo baaraa ama loo daaweeyaa. Inkastoo aan jeclayn inaan soo qaado dhacdooyinka internetka qabsada, laakiin arrintan waa mid halis ah oo u baahan in bulshadu wax badan ka ogaato. Su'aalaha la isoo weydiiyeyna waa kuwo wada muhiim ah. Marka hore, ciladan waxaa loo yaqaanaa schizophrenia, waa xanuun dhimirka ku dhaca. Bulshadu aad ayuu ugu badan yahay, weliba dhalinyarada. Maalin walbana isbitaalada ayaan ku aragnaa. Nasiib xumo, xanuunkan wuxuu kaga duwan yahay xanuunada kale ee dhimirka ku dhaco sida niyad jabka, kacsanaanta iyo bipolarka, inuu qofka xanuunsan uusan ogeyn inay wax ka qaldan yihiin amaba jiran yahay. Arrintaas oo loo yaqaano lack of insight. Tan dhibka ay keenayso waa qofkii oo diido daawada ama uu arko in wax kale lala damacsan yahay markii daawada lagu soo qaado. Marka waa muhiim qoyska iyo qaraabada qofka xanuunsan inay iyagu marka hore fahmaan xanuunkan si ay qayb uga qaataan la tacaalistiisa, daryeelna ugu raadiyaan. Waxaa la qiyaasaa 3 qofba hal qof kaliya inuu daryeel helo, sababtuna waa aqoon la'aanta loo leeyahay xanuunkan. Astaamaha lagu garto xanuunkan waxaa ugu horeeya 1. Qofka oo u sawirma wax aan jirin, lagana dhaadhicin karin. Arrintaas oo afka qalaad lagu dhaho delusions. Qofka waxa u sawirmayo ayaa kala duwanaan karo. Midda ugu caansan waxaa loo yaqaanaa delusion of persecution, oo ah qofkoo dareemo in la dili rabo, la dhaawici rabo, lagu raad joogo, wax xun lala maagsan yahay, ama qofkoo dhaho waa la iraadsanayaa, dadaa la ii soo diray, waa la ii tashtay iyo wax la mid ah. Waxyaabaha kale oo qofku uu sawirmi karo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano delusion of thought insertion or broadcasting, oo ah qofkoo aamino in la kontroolayo waxa uu ku hadlayo iyo sida uu fakarayo inuusan isaga lahayn oo dad kale maamulayaan maskaxdiisa, iyo sidii robotkii oo kale loogu shaqaysanayo. Wuxuuna qofka ku celceliyaa iga baxa, maskaxda ii daaya, waxaa rabtiin waa idin yeelayaa, fakarkayga iyo hadalkayga ii dhaafa iyo hadallo la mid ah. Labadan delusions aan tilmaamay waa kuwa ugu caansan cudurkan, laakiin delusionsku way badan yihiin oo ilaa 18 nooc ay u kala baxaan. Qoraallo aan hadda ka hor ku faahfaahiyay cudurkan ayaad ka helaysaa bogga Somali Doc ee ka soo akhriso. Astaanta labaad waa qofka lixdiisa lixaad ay dareemaan wax aan jirin, dadka kalena u muuqan, taasoo afka qalaad lagu dhaho hallucinations. Una badan maqal iyo muuqaal, sida qofkoo dhaho waa la ila hadlooyaa, idinka wax ma maqlaysaan miyaa, waxaas ma ujeediin miyaa, iga qabta waxaan igu soo socdo, ama dad horay u dhintay uu jeclaa inay soo hor istaagaan ama ula hadlo. Intaas iyo kuwo ka badan way dareemaan, taasoo sii siyaadinayso dhibka delusionska. Qofkana marnaba lagama dhaadhicin karo, lagamana qancin karo waxaas inaysan jirin, si walbo isugu daydid. Astaanta saddexaad waa qofkoo si sax ah u fakarin, oo aad dareemayso dhowr mowduuc oo aan islahayn inuu isku dhex furayo, taasoo lagu dareemayo in maskaxdiisu aysan fadhin, tanoo loo yaqaano disorganized thinking ama behavior. Iyo qofkoo dareenkiisa iyo ficiladiisa daqiiqado gudahood isku bedelo, isagoo marna qoslo, marna ooyo, marna xanaaqo, marna dhaarto, marna tuugtama iyo wax la mid ah. Marka maxaa keena cudurkan? Waxaa la aaminsan yahay in cudurkan ka dhasho markii dheecaanada maskaxda u kala goosho ay khalkhalaan, ama maskaxda dhambaalada ay isku dirto oo si khaldan u shaqeeyaan, khaasatan dhambaalsidaha loo yaqaan dopamine ama qaybo maskaxda ka tirsan oo wada xiriiri jiray oo hakad galo. Sidoo kale wuxuu noqdaa cudur hidde-raac ah oo qoysaska qaar ku badan. Sidoo kale waxaa lala xiriiriyaa dhaawac hore maskaxda u soo gaaray, isku buuq raagay, balwadaha qaar sida xashiishka, sidoo kale caabuqyada maskaxda ku dhaco khaasatan kuwa virus-ku keeno, iyo sidoo kale ku sumoobidda maarta. In la garto xanuunkan inuu qofku hayo way sahlan tahay, laakiin waxa uu keenay ayaa u baahan baaritaan. Marka waa qasab in lala xiriiriyo dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada dhimirka, kaasoo loo yaqaan psychiatrist, ma ahan psychologist oo hadal iyo tusaaleyn wax ku daaweeyo. Soomaalidu way isku qaldaan labadan takhasus. Ogow, schizophrenia waxaa daaweyn karo psychiatrist. Midda kale, xanuunka markuu cusub yahay way sahlan tahay in la xakameeyo oo daawooyin kiniiniyaal ah ayaa bukaanka la siiyaa. Waana qasab in qoysku qayb weyn ka qaato daryeelka bukaanka, maadaama qofku aaminsaneenba inuu xanuunsan yahay, daawona u baahnayn, waliba markuu xanuunku ku cusub yahay. Laakiin markuu fiicnaado oo looga sheekeeyo siduu ahaa ama uu arkaba wuu qirayaa inay wax ka qaldanaayeen, daawadana markaas wuu ku dadaalaa isagoo ka cabsanayo inay sidii hore ku laabto. Ugu dambeyn, quraanku waa daawo, maskaxda ayuu dejiyaa, laakiin qofkii qabo schizophrenia waxaa ku talin lahaa in daawada iyo quraanka la iskugu daro. Wixii su'aalo ahna noogu reeb qaybta comments ee muuqaalkan. Inta xanuunsan Allah caafiyo, waana mahadsantihiin.